assalaamu calaykum dhammaan asxaabta kusoo dhawaada kanaalkeena maankaaba iyo muuqaal cusub. maanta waxaan halkan ku daafuraynaa taxano cusub oo aan ugu magac darnay qiso iyo cibro, kaasoo aan kusoo gudbin doono qisooyin saameyn leh iyo cibrada iyo casharka aan ka baran karno. ee kusoo dhawaada qisadeena koowaad. waxaan idiin soo gudbinaya anigoo ah walaalkiin cabdiraxmaan suudi. kani waa wiil dhalinyaro ah kaasoo ka dhashay qoys wanaagsan laguna barbaariyay akhlaaq wanaagsan. waxa uu dhigtaa jaamacadda, badanaa waxaa ka tagta salaada subax. arrintan waxay ka caraysiisaa waalidkiisa, gaar ahaan hooyadiis, taasoo maamulad ka ah dugsiga hoose. maalin maalmaha ka mid ah oo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ayay kicisay hooyadiis si uu u aado masaajidka, laakiin nasiib darro ma uusan kicin. aad ayay u murugatay hooyadii, kadibna way ku soo laabatay haddii ay dhaaftay salaada jamaacada, bal inuu guriga ku tukado inta aysan soo bixin qoraxdu, balse sidii oo kale ma uusan kicin mar labaadna. markii la gaaray halka saac ayay aaday hooyadii shaqadeedii, mana aysan u kicin jaamacadda. waxa uu kacay 4 saac, mana uusan aadin jaamacaddii, imtixaankiina waa uu dhaafay. waxaa shaqadii ka soo laabatay hooyadii, waxa uuna ku yidhi, hooyo maxaa ii kicin weysay, imtixaankii waa uu ii dhaafay. hooyadii oo caraysan ayaa ku tiri, waxaan arkay inaad ku dhacday imtixaankii aakhiro, wax micno ahna iima samaynayso inaad ku baasay imtixaanka adduunyada. miyaadan xasuusnayn axaadiistii nebiga sala allahu calayhi wasalam uu lahaa, 2 ragcadood ee salaada subax waxa ay ka khayr badan yihiin adduunka iyo waxa dushiisa saaran oo dhan. qofkii tukada salaada subax waxa uu ku jiraa xifdiga alle ilaa uu ka galabaysto. waxaana ka cabsanayaa inaad ka fogaatay xifdiga alle, isagoo ah kan ku xifdinaya oo ku ilaalinaya. wiilkii marka uu arkay in hooyadiis caraysan tahay ayuu waxa uu isku dayay inuu ka qosliyo oo ka farxiyo hooyadii. waxa uuna weydiiyey, hooyo maxaad maanta u samaynaysaa afur? waxay ku tiri, waxaan karin sun ee idhaaf oo horteeda ka tag. waxa uu ku yidhi, hooyo waan xanaaqay, mana afurayo galabta. waxay ku tiri, anaa kaa daran wiilkayga, oo aad ayaan u caraysnahay. wiilkii oo dhalla cadaynaya ayaa waxa uu madaxa ka shumiyey hooyadii, weliba iyadoo diidaysa inuu shumiyo. waxa uuna ku yidhi, hooyo guriga ka bixi maayo ilaa aad i cafiso maahane. way cafisay, wayna u dhoolla cadaysay hooyadii wiilkeeda. wuu baxay wiilkii si uu hadiyad ugu soo iibiyo hooyadiis. waxa uuna ogaaday inay hooyadiis wanaag iyo khayr la doonayso. inta uu maqnaa way u dacaysay hooyadii wiilkeeda in ilaahay ka badbaadiyay sharta bini'aadamka, waxayna guda gashay inay u samayso cunnada aadka uu u jeclaa wiilkeedu. waqti yar ka hor xilligii afurka waxay diyaarisay hooyadii goobtii afurka iyo cunnadii la cuni lahaa. waxayna u sheegtay gabadhii inay wacdo walaalkeed oo xilliga afurka uu taagan yahay. gabadhii waxay wacday walaalkeed, balse nasiib daro telefoonkiisa waa uu dansanaa. markii la adimay qoyskii waxaa qabsaday welwel, gaar ahaan hooyadii. waxa uu u soo dhacay telefoon war degdeg ah kaasoo leh, shil gaari ayaa ka dhacay waddo hebla. hooyadii aad ayay u naxday, waxaadba moodaa in wadnaheedii garaacii joojiyay cabsi darteed. wayna u ducaysay wiilkeeda, waxayna tiri, hooyo allah wax ku dhibo kuma tuso. qoyskii way ka kaceen goobtii afurka iyagoo xabad timir ahna aan afka gashan. allah ayayna u baryay wiilkooda. waxaa la soo garaacay albaabkii xaafadda. waxaa si degdeg ah u furtay hooyadii, waxayna aragtay wiilkeedii oo hortaagan. way ku booday, waxayna gelisay laabta iyo xabadka. wuu shumiyey hooyadii, waxa uuna siiyey hadiyaddii uu u waday. waxa uuna yidhi, hooyo waxaan saarnaa gaarigii uu shilku ka dhacay, laakiin allah waxa uu igu badbaadiyey ducadaadii. waxaana allah ballan kula gelayaa inaanan salaad subxeed oo dambe ka tegin, sababtoo ah ma jiro qof garanaya xilliga uu ka tegayo dunidan. haddaba asxaabta qiimaha badan, waxaa halkaas kusoo gabagaboobay qisadeeni quruxda badnayd. waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah walaalkiin cabdiraxmaan suudi. qisadan casharka aan ka baran karno waxaa ka mid ah: 1. muhiimadda ay leedahay salaada subax iyo inaan ilaalino. 2. inaan si degan ula hadalno hooyooyinkeen una samafalno. 3. hooyooyinku inaysan habaarin ilmahooda ay u duceeyaan xataa haddii uu khaldan yahay, waayo ducadooda ayaa laga yaabaa inuu allah ku soo hanuuniyo. daawade, haddaad garanayso cashar kale oo aad qisadan ka dhex aragtay ama ka dhex fahantay, fadlan nagula wadaa qaybta kommentiga. intaan waxaa ku eg qisadeennii koowaad ee taxanaheennii qiso iyo cibro. fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalka sabskribe saar, muuqaalkana like saar. haddaad rabto inaad soo bandhino qisooyinka noocan oo kale ah, fadlan qaybta kommentiga nagula wadaag fikirkaaga. waad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.